بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. soo dhawaada dhammaantiin. waxaan ku guda jirnaa casharaantii aan ku baranaynay higaada luqada carabiga, gaar ahaan waxaan ku jirnay xuruuf luqada carabiga ama xuruuf hijaa waxa loo yaqaano. waxaan soo gaadhnay xarafka 22aad ee ka mid ah xuruufta luqada carabiga. xarafkan waxa loo yaqaanaa xarful kaaf. kaaf ayaa loo yaqaanaa. qaab qoraalkiisu sida tan ayuu noqonayaa. halka ayaad ka bilaabaysaa, sidan ayaad wadiiro xoodaysaa ma toosna. halkan markaad joogto ma istaajinaysid ee adigoo sidaa u wada ayaad wareejinaysaa. intan inay toosan tahay lamada, laakiin iyadoo laftarkeega xoodni ayaa ku jirta. laakiin waad jiidaysaa. meelaha markaad marayso ayaad haddana xaggan soo leexanaysaa. meelaha markaad joogto adigoona sidaa aanu istaajiyay hadda aanu istaajinin oo wareeggeygin ku wada ayaad saas oo kale haddana wadaysaa. intan kadib way toosan tahay, way toosinaysaa. halka ayaad ku dhamaynaysaa. xarful kaaf qaab qoraalkiisu sida halkaas ka soo bilaabaysaa. meelaha markaad joogto ayaad yara wareejinaysaa. intan haddana waad wadaysaa. meelaha markaad joogto haddana yara wareejinaysaa. halkan haddana wareejinaysaa. waad iska toosinaysaa kadib. xarful kaaf qaabka waa loo qoraa. xarful kaaf mararka qaarna waxaa loo qori karaa sida tan ayaa loo qori karaa. sida tan hadda soo socota ayaan ka wadaa. qaabkan waa loo qori karaa, qaabkan waa loo qori karaa. calaamadana xaraf maaha, qofka ku cusub tahay slashtan waxa loo yaqaano yani ama oo kale faa'iideynaysaa, yani sidan iyo sidan baa ku banaan bay ku leedahay. waxaan u jeedaa xarafku waa ama waa kan ama waa kan wey. waayahay qaabka balkana qaab qoraalkiisa aan isla eegno. markuu kaliya yahay qaabkan waa loo qori karaa. halkan alif taagan baad iska dhiganaysaa. deedna alif kaloo jiiftaad sidan hoos dhigaysaa, saasaad leedahay. waxaan yar baad dusha ka saaraysaa deedna dhag, saas ayaa ay kuugu dhan tahay. waayahay sidaan kusoo marnay aliftii da'da iyo dul taalay ayaa soolkaa yar loo samayn karaa. hadaad iska diisana wax dhiba ma laha. ka xagganaad warka ka bilaabaysaa, sidan aad u jiidaysaa, halka ayaad soo gaadhsiinaysaa, deedna tan ayaad saa ugu daraysaa. soolkan hadaad u baahan tahay iminkaad ku daba daraysa marka. waay hadaad iska badaysana xarful kaaf qof qoray waa lagaa soo qaadaya insha allah. xarafkaas waa xarafka 22aad ee ka mid ah xuruufta higaada, waxaana loo yaqaanaa kaaf. waay waan ka gudbayaa xarafka 23aad baan u gudbayaa ee ka mid ah xuruufta higaada. xarafkan waxaa loo yaqaanaa xarful laamka qaab qoraalkiisu waa iska fudud yahay. aliftii taagneyd ee hadda kaafka noociisa labaad dul taale ama da'dii nagu soo martay ayaad saa u taagaysaa. deedna xaggan dambe waxaad kaga xidhaysaa wixii ku daba xidhnaa, yani waxa weeyaan siinkii iyo shiinkii iyo soodkii iyo doodkii na soo maray. qaybtii xagga dambe saasoo kale usoo rogni ayaad ku daba xidhaysaa. marka waa aliftaa taagan oo qaybtan yar loogu daba xidhay wey. insha allah waxaan gaari doonaa xarafka kan ku xiga ku xiga wey. qaybtan haddaynu ka jarno, aliftaa taagan haddaynu ka jarno, ama kuwiina soo horumaray soodkii iyo doodkii iyo siinkii iyo shiinkii iyo qaybihii hore laga jaro, intan dambe halka haddaynu warka ka bilowno intaa dambe xaraf dhan bay iska noqon doontaa. xarfu nuun la yiraahdo ayay noqon doontaa. marka waxa weeyaan laamku laakiin waa noocan, waa aliftaa taagan oo intan lagu daba xidhay wey. waxaa loo yaqaanaa laam. waa xarafka 23aad ee xuruufta luqa alcarabiya. xarafka 24aad baynu u gudbaynaa ee ka mid ah xuruufta luqa alcarabiya. xarafkan waxaa loo yaqaanaa xarful miimka qaab qoraalkiisu waa sidan. halkaas ayaad warka ka bilaabaysaa, iska ilaali. haddaad meelahan kale ka bilowdo uu kaa fool xumaan doona. dadka qaar halkan oo kale intay ka bilaabaan ay saa usoo rogaan, deedna siiro yaroo layn hoos taaluma noqdo oo fool xumaada. halkanaad ka bilaabaysaa, iska ilaali. halkaasaad ka bilaabaysaa. meelaha markaad joogto adigoona istaajinayn baad soo rogaysaa, sidii aynu khadkan ku naqaanay saasaad usoo rogaysaa. halkaa markaad joogto ayaa haddana sidaa ugu yar noqonaysaa xaggii oo kale. afkii markaad aad ugu dhawaataad iska sii daynaysaa. marka haddaad kuba qabatana dhib male, markaa aad usii fool xumaan maayo. laakiin intaad afkaba gaadhsiinin in meelaha socoto, meelaha inaad sidan u rogto sii dayso ayaa loo baahan yahay. markaan kuugu celiyo, halkaas ayaad ka bilaabaysaa. meelaha markaad joogto waad wareejinaysaa. meelahaasoo kale markaad joogtana sidan ayaad usoo celinaysaa. halkaas ayaa saasaad usii daynaysaa. wuxuu leeyahay miimku qaab labaad oo loo qoro. qaabkaasna waxaa loo yaqaanaa sida tan ayaa loo yaqaanaa. markuu kelidii yahay qaabkana waa loo qori karaa. marka qaabkana soo noqonaya, iska ilaali isna sidan oo kale isna ha u qoolalaabin. halkaa ka bilow, halkaa aan farta ku ayaad ka bilaabaysaa. sidaas ayaad leedahay, waad soo rogaysaa. intaa kii hore ka siman yihiin. halkaa marka la joogo sana loo noqon jiray kii hore, marka lama noqonaya kane. halkii aad ka timid ayaad gaarsiinaysaa. idna san adigu soo dhex noqonaysaa.
qaybta ay saas u sii deynaysaa way marka aan kugu celiyo halkaas ayaad ka bilaabaysaa meelaha markaad joogto waad wareejinaysaa saa uma istaajinaysid waad wareejinaysaa halka markaad joogto qaybta lama toosno oo sidan looma toosinayo saa uma toosayso ay waxa weeyaan sidaas ayay halkii hore ugu noqonaysaa oo way yaro xoodinta halka markaad marayso saas ayaad jiidaysaa halkii aad ka timid markaad saa ugu noqoto ayaad sidan oo kale hadana qaybta midida oo kale aad saa u furaysaa miim labada qaab ayaa loo qoraa markuu kaliya way miim 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 ayaa loo yaqaan waa ka gudbaya way waxaan u gudbayaa xarafka 25aad ee kamid ah xuruufta luqada carabiga xarafkan waxa loo garan og yahay isagana xarfu nuun 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 waa kii markaynu laamka marinaan ku tilmaamay waa laamka u shii dheereed laga jaray way ama siinkii iyo shiinkii iyo soodkii iyo doodkii oo qaybiye xagan dambe laga jaray way marka halkaas aad ka bilaabaysaa sidaan ayaad oranaysaa sidaan ayaad soo rogaysaa halkaas ay ku joojinaysaa dhibic ayaad u dhigaysaa qaab qoraalkiisu aad ayuu fudud yahay laakiin waxaanu baraarujinaynaa iska ilaali qaabka bacda looma qoro bacdi sidaa dheereed ayay u qornay iska ilaali halkaas way yara fidsan tahay inkastoo ay xoogdan tahay laakiin way ka dheer tahay yani isagoo halkan uu gaaban yahay nuunku marka qaabkan haddaad u fidiso ama ba bay ku noqon dhibic baad hoosta ka dhigi ama waxay ku noqon ta bay ku noqon laba dhibcood baad dusha ka dhigi ama sa bay ku noqon saddex dhibcood baad dusha ka dhigi laakiin intaad qaabkaas sidaa u fidiso ina haddana dhibic kaliya dusha ka dhigto nuun baan ku wada tiraa meel laga yeeli maayo sidan aad u gaabinaysaa isaga calooshan yar uu gaaban yahay wala fahmay baan filaya marka isku mid maaha dadku aad bay ugu khaldamaan inta badan dad mudarrisiinta saa ugu dhiga dadka oo waxa weeyaan qaabkan bas kaga qoraan laakiin waa khalad culamaa ul khat waxay leeyihiin isku qoraal maaha way marka qaabka waa la diidan yahay lama ogolata baada qaabka ay u qoranta lama ogola sidan ayuu u kooban yahay nuunku way waa ka sii soconay xarafka waxa weeyaan 26aad kamid ah xuruufta luqada carabiga waxa loo yaqaanaa xarful haa way هذا قاب قرال كيدو واسدتن halka ayaad ka bilaabaysaa iska ilaaliyadna sidan isku warwareejinin oo yaraad agtahay halka ayaad ka bilaabaysaa sanayadu soo xoodaysaa saama toosna sanayadu soo xoodaysaa meelaha markaad joogto sidii baad ugu horgeynaysaa miimka qaybtiisa labaad markii qoran ugu horgeynayno kale oo soo ma toosinaysid saasoo kale ugu horgeynaysaa sanad ugu soo rogaysaa qaybtii faada iyo qaafkiyo madaxoog baad samaynaysaa saas ayaa hadana iska sideynaysaa way marka aan kugu celiyo halkaas ayaad ka bilaabaysaa warka saasad soo xoodaysaa waad ka horgeynaysaa qaybtii faadiye ku dhex jirta saa ugu soo celinaysaa waad sii deynaysaa ha warkeedu sida ayuu kugu leeyahay way waa ka gudbayaa iyadana waxaan u gudbayaa xarafka yani waxa weeyaan 27aad ee kamid ah xuruufta luqada carabiga xarafka waxa loo yaqaanaa xarful waaw marka waawga qaabkiisu qaybtan sare wuxuu la mid yahay madaxii faada iyo waawga ayuu la mid yahay madaxii faada iyo yani aan raado qaafka ayuu la mid yahay laakiin faadu halkaas ayay saasoo kale u yara dheereed markaas saas u laabmaysa qaafkuna uu koobnaa laakiin saanu isna u laabmay dadibcana wala hayno faadu hal dhibic bay lahayd qaafkuna laba dhibic wala laakiin wowgu wax dhibicana male madaxa markaad saa tirahdana qaybtan san ayaad u yara baxaysaa oo hadda laynkii hadduu halkaasoo kale marayo laynkii buugga hadduu halkaasoo kale marayo hoos ayuu qaybtan uga baxaya markaas saas ayaad oranaysaa meelahaasoo kale markaad joogto ayaad saa u yara celinaysaa xarful waaw dadka qaarkood waxay isweydiinayaan dariiqada Soomaaligu inta badan waxay ahayd in wowgii hada la kala hormariyo oo nuunka wowga ku xigay hada ayadeedna ku sii xigtay qaabkaas Soomaalida uma ku arkay laakiin ma arkin cid kale oo sidaa u sharaxday kutubta yani tilmaamaysa tartiibtan iyo waxa weeyaan caalamka islaamiga kala sida loo dhigtaba hada ayaa horeysa dabcan sida ayaana fiican sababtoo ah wowgan iyo xarafka ka dambeeyay yaada ayaa xidhiidh leh oo insha Allah markaynu naxwada luqada aan dhiganayno ayaynu ogaan doonaa xidhiidhka ka dhaxeeya markaan hada la soo horeysiyaa fiican كل دي كله هوريسين تروح لقول عبادي سنة يوم هاي كيل دونا دي الهوريسي واحد وين مسيلة ودبا لكن دي ترتيبته إن لا يرى إلى عليو أيا قرح بقى وين حنفلا يوم لها الصومالي ونيو الصومالي أيا يعني وها يا كنا مع هذا المكتب بتجاد الصومالي كمان لها تصوم بين السراعين وين عن كسر عن هذا الرئيسة ووجا يا حرف كسر بلا تنات كدجنا واو أيا لايقة وين حرف كسر دي لما تنادى كم ده حروف تيجي ده وحنا قرية حرف الله يقانو حرف الياء يا ده قاب قرالكي ويدنا وصلة halka ayaad ka bilaabaysaa iska ilaalin way yar adag tahay meelaha markaad joogto ayaad soo xoodaysaa halka markaad joogto ayaad hadana saas oo kale soo xoodaysaa halka markaad joogto ayaad hadana saas oo kale soo xoodaysaa gabi weyn wada xoodinta dhowr jeer wala leexleexanaya kaas galal halkan ka bilow warka hadaad sidan oo kale ugu kala noqnoqoto wax way ka fool xumaanaysa hadaad saan iskaga toosiso saas oo kale iskaga wado sidii saada Soomaaliga oo kale ka fool xumaanaysa halkaas ayaad ka bilaabaysaa meelaha markaad joogtad saa u yar wareejinaysaa adigoona istaajinin
saabad leedahay saasaad soo wareejinaysa halkaas haddana saa usii xoodaysa adoon istaajinayn halkaa haddana saa usii xoodaysa adoon istaajinayn saas ayaad deedna u celinaysaa xarful yaasa ayay kaaga dhantaa laba dhibcoodna hoosta ayaad ka dhigaysaa waay waa xarafka 8 xuruufta luqa alcarabiya waayahay waxaynu u gudbaynaa xarafka 29 ee kamid ah xuruufta luqa alcarabiya xarafkan waxaa loo yaqaanaa hamzun ama hamzatun kolba kii la yidhaahdo qaab qoraalkiisu ma cusla waa caynkii aynu soo sharaxnay madaxiisa ama qeynkii aynu madaxiisa soo sharaxnay oo qaybtii dambe laga jaray marka ra'sul cayn baa loo yaqaanba madaxii caynka marka waa madaxii oo qaybtii dambe si uu rugmanaysay jiimka iyo xaadi iyo khadiya ku xidhnayd oo kale ee caynkii qeynkana ku daba xidhnayd laga jaray oo madaxii loo daayay madaxaas baa loo daayay cayn ayaa waxa loo yaqaanaa hamzun ayaa loo yaqaanaa ama hamzatun mid ka doonta dhe way xuruuf luqa alcarabiya halkaas ayaa culimadu ugu dhamaadeen 29 xaraf marka qaar waxa loo tiriyaa 28 xaraf oo hamzadan iyo aliftii u horeysay iyo hal xaraf laga soo qaada kullay markaynu kordhiga gaan ayaan sababta yani hal xaraf loogu tiriyay aynu sheegi doonaa xidhiidh weyn baa ka dhaxay laakiin waxa qurux badan in la kala saaro way waa laba xaraf oo yani waxa weeyaan meelaha qaar xidhiidh baa wadaagaan laakiin de laba xaraf oo kala duwan oo aan shaqo isku lahayn way marka 29 xaraf laga dhigo oo aliftii u horeysayna gaar loo tiriyo hamzadana gaar loo tiriyo ayaa fiican way waxaanu u gudbaynaa imikana tatbiiqaadkii qaabka aynu wuxuu muraajacin jirnay waxaanu odhan jirnay turuqul muraajacati 3 qaabka wax loo muraajiciyo saddexda ah waa iska boobsinaya maadaama aynu dee in badan kusoo dhex jirno hore soo sharaxnay waayahay waxaanu odhan jirnay xarafkan soo socda waa inaad garataa buugaaga iyo qalinkaaga oo diyaarsanaysa insha allahu tacaala bal xarafkan magaciisa sheeg haddii aad kugu culis yahay yara istaajiso fideoga ka fikir iminkaan sheegay waxaan leeyahay xarfu laam kan kale haddana isku day jawaab baad bixisay baan filayaa waa xarfu miim kan kale waa kaaf kana waa nuun kana waa waaw kana waa hamzun kana waa yaa kana waa haa waayahay waxaynu naqaanay inaynu mid kalar siino oo deedna aynu kala saarsaarno bal hadday wax isku egi jiraan kanaan kalarka siinaya waa xarfu laam kan kalaan kalarka siinaya waa miim kan baan kalarka siinaya waa kaaf kan kalaan kalarka siinaya waa nuun kan kalaan kalarka siinaya waa waaw kan kalaan kalarka siinaya waa haa kan kalaan kalarka siinaya waa yaa kan kalaan kalarka siinaya waa haa mid aan yani mid kalar yani isku mid aan siiyay laba kalar isku mid aan siiyay ma jiro sababtoo ah maanta xarafna xaraf uma eka kuwii hore qaarka isku kalarka yani waxaan doonaya isku midka ah qaab qoraalka laakiin dhibcuhuna ay kala duwayaan hal kalar ayaan siin jiray maanta xabadna xabad la kalar maaha sababtoo ah dee xaraf la mid ma jiro xagga qoraalka si fiican u fiiri insha Allah markaan muraajacino kala saari doona kuwa yani isku qoraalka iyo kuwa aan shaqaba isku lahayn marka qaybta maanta qaadan kuwa isku shaqaba isku lahayn bay ku jiraan waxaad imkana soo qaadataan xarafka la noqdo waxaad soo qaadataa buugaaga qalinkaaga diyaarso xuruuftana tartiibinaysa sidii caadadeenoo ahayd qaybta labaad aynu muraajacin jirnay waa tartiibinaysaa xarafkii horeeyay ilaa ka dambeeyay waayahay waxaan filayaa inaad fiidiyoga istaajisay deedna aad tartiibisay bal fiiri imkana aniga ayaa qoraya inaad saxdayeen kale xarafka horeeya wuxuu kaaf waxa ku xiga laam waxa ku xiga miim waxa ku xiga nuun hadda miimka iyo kaafka labadii qaab aynu qornay midba mid ayaan ka soo qaatay marka miimku mar qaabkaas uu qormiyay marna qaabkan kaafkan marna qaabkan kay la qoraabo caadi waaw ayaa inoogu xigay haa baa inoogu xigtay baan doonaya aniga baa dariiqadii Soomaaliga ku khaldamay yara diidana wawgeen la dameysiya fiican waaw ayaa ku sii xiga waxa ku sii xiga yaa waxa ugu dambeeya hamzun way qaybta saddexaad aynu wuxuu muraajacin jirnay waxay ahayd uktub ma yumla calayka waxa lagu yeedhinayo qor marka waa macalinkii aynu inagu siin jirnay marka waxa weeyaan qaabka igu yeedhaad oranaysa qaabka koobaad ee kugu yeedhina wuxuu noqonayaa bitariiqatin cashwaa'iyya qaab isku dhex daadsan inuu kugu yeedhiyo oo tusaalaan ya qor uu ku dhahdo nuun qor laam qor waaw qor miim qor saas oo kale qaabka labaad ee kugu yeedhinayana waxay ahayd bitariiqatin murattaba qaab tartiibsan inuu kugu yeedhiyo oo ku dhahdo kaaf qor laam qor miim nuun haa waaw yaa hamzun qaabka uu qoran ku dhahdo waxaanu tilmaami jirnay haddaad weydo qof noocaas kugu yeedhiyo wax garanaya طبعا قف wax garanayna u tagin oo ku waali doona inuu kugu laaqaba suuragala markaan baraarujinay nuunka inaan fidsanayna soo kooban yahay sida baad oo kale aanu la mid ahayn waxaanu sheegnay dad badan yani cid khalada inay tahay cidan u qoraysa waxaad arkaysaa marka qaar xaraf aan xarafkiiba u dhaweyn baa loo qoraya oo qaab qoraalkii ayaa ka khaldamay marka adigu
cidda aad wax ka qaadanaysa iska ilaali waayahay haddii kale de adiga ayaa isdayaacay waa dee dhakhtar aad u tagtay oo waxa weeyaan aan garanayn xanuunkaaga waaya ama dawadiisa aan garanayn labadan qaybood ayaad iskaga kaaftoomi doonta haddii qofkaas aad weydo insha allahu waxaan rajeynaya darsiga aad ka wada faa'iidaysateen gaadsii cidda aad isleedahay wuu anfacayaa waxaynu isku dayi doonaa darsigan xiga muraajaca caama inaynu u samayno xuruuftii luqada carabiga maadaama ay noo dhammaadeen baaraka allahu fiikum wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu